kulantii waxaan asxaabay meel walba joogtaan kuna soo dhawaada kanaalka arrimaha fanka halkan maanta waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha aflaanta waa anigoo ah Cabduqaadir Maxamed Cabdullaahi laga soo bilaabo bilihii ugu dambeeyay waxaa jiray warar la isdhex marayo oo ku saabsan isbedelka suurtagalka ah ee taariikhda la sideyn lahaa filimka SS Rajamouli ee Rara ama RRR filimka aad loo wada sugayo ee SS xidigaha NTR iyo Ramjaran ayaa hogaamiyaalka ah halka Alia Bhatt iyo Ajay Devgan marti ku noqon doonaan taariikhda la sideyn lahaa filimka ayaa loo wareejiyay sida laga soo xigtay ilaha ku dhow mana la sideyn doona bisha Luulyo tani waa sideyntii ugu horeysay ee Rajamouli kadib Magnum Opus Bahubali waxaa loo baahan yahay in la yiraahdo filimkan wuxuu hubaal ahaan doonaa in uu duufaano ka dhex abuuro box office-ka guud ahaan Hindiya RRR ama Rara waa sheeko khiyaali ah oo la dejiyay 1920kii xilliyadii ka horeeyay madax banaanida waxayna ku saleysan tahay nolosha laba geesiyaal oo dhab ah iyo kacdoon caan ah Alluri Sitarama Raju iyo Komaram sida laga soo xigtay ilo ku dhow kooxda RRR filimkan wuxuu arki doonaa sideentiisa ama la sideyn doonaa bisha October dhanka kale aktarka caanka ah Shah Rukh Khan ayaa la leeyahay in uu fasax ku meel gaar ah ka qaatay filimada taageerayaashiisu waxa ay si aad ugu faraxsan yihiin Kinki Khan inuu dhawaan ku soo laaban doono shaashadaha markii ugu dambeysay ayaa lagu arkay filimka Zero kaasoo la daawaday 2018 laga soo bilaabo bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa jiray hadallo badan oo ku saabsan filimada aktarkan loo soo bandhigay filim sameeya caanka Rajkumar ayaa asna ku soo laaban doono shaashada sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Filmfare Shah Rukh Khan wuxuu ugu dambeyntii la saxiixday filimkiisa xiga Rajkumar Hirani waxaa sidoo kale jira in aktriishada caanka ah ee Kareena Kapoor Khan loo arki doono marwada koowaad ee filimkan runtii waxay noqon doontaa wax xiiso leh in la daawado xidigaha RA1 oo wada shaqeynaya mar labaad si kastaba ma jiro wax si rasmi ah oo xaqiijinaya labada dhinac midkoodba dhanka Kareena Kapoor waxay hadda ku raaxaysanaysaa guusha ay ka gaartay filimka Good News kaasoo ay wada jileen Akshay Kumar, Kiara Advani, Diljit Dosanjh sidoo kale SRK markii ugu dambeysay ayaa asna lagu arkay isagoo martigelinaya bandhig faneed caan ah kaasoo dadka dhiirigeliya isla markaana ka wada hadla arrimaha quseeya maanta iyo da'da sidoo kale waxaa jira warar xiiso leh Ajay Devgan ayaa hadda ku raaxaysanaya guushiisa ugu dambeysay ee Tanhaji Yusuf Warrior filimkan ayaa waxaa hogaamiyaalka Ajay iyo Saif Ali Khan iyo Kajal waqtiyan durba waa uu dhaafay ama ka gudbay 100 karoor box office-ka Ajay Devgan ayaa u mahadceliyay taageerayaashiisa sida ay jaceylka ugu muujiyeen filimkiisa baraha bulshada hadda waxa uu soo qaatay bartiisa Twitter-ka si uu u wadaago ama asxaabtiisa ama friendskiisa uu la wadaago sawiro oo ku saabsan filimkiisii 2002 ee The Legend of Bhagat Singh iyo Tanhaji Yusuf Warrior oo dhawaan tiyaatarada loo saaray arrintan ayaa waxaa ka hadlay dad gaaraya 5896 qofood The Legend of Bhagat Singh oo la sidaayay 2002 ayaa soo dhaweyn weyn ka qaatay si kastaba ha noqotee shaqo fiican kama qabanin box office-ka maxaa yeelay 3 filim ayaa lala sidaayay isla toddobaadkaas ama toddobaadkiisa ugu horeeyay filimkan ayaa ku saleysanaa dagaalyaankii xorta ahaa ee Bhagat Singh dhanka kale filimka Tanhaji Yusuf Warrior ayaa sameeyay koror dhan 60% sabtigiisa labaad maadaama uu soo xareeyay 15.5 karoor tani waxa ay ka dhigantahay in ganacsigiisa uu maray 141 karoor muddo 9 maalmood gudahooda kororka sabtidii waxa uu muujinayaa in uu si raaxo leh ku gaari doono 200 karoor waana markii ugu weyneyd
ee lacagaha ugu badan uu soo xareeyo Ajay Devgan. Tanhaji Yuusuf Warrior ayaa keenay toddobaadkiisa koowaad 116 karoor, halka jimcadiisa labaad uu keenay 9.50, sabtidiisa labaad waxa uu keenay 15.50 karoor. toddobaadkiisa labaad 25 karoor ayuu keenay muddo 2 maalmood gudahooda. Total waa 141 karoor. sidoo kale waxaa tiyaatarada saaran filimka Good News oo asna gaabiyay toddobaadkiisa afraad maadaama isku dar keenay 2 karoor celcelis ahaan jimcada iyo sabtida. waxaana suuragal ah inuu isbuuc dhamaadkiisa gaari doono 3.25 ilaa 3.50 karoor. wadarta guud ee filimkan lacagaha uu soo xareeyay waxa ay ka hooseeyaan 192 karoor, waxaana uu maanta ka gudbi doonaa ganacsiga filimka Meesha Mangal. filimkan wuxuu noqon doonaa filimka lixaad ee ugu sareeya sanada 2019 kadib isbuuc dhamaadka Kabir Singh, Yuri Strike, Hospital 4 iyo Bharat. waxayna u egtahay bartilmaameedka filimkan inuu dhammaysan doono toddobaadka shanaad uu ka gudbi doono Bharat, inkastoo taasi laga yaabo inaysan fududaan doonin maxaa yeelay waxaa jira 2 sideen oo cusub isbuuca soo socda. lacagaha Good News ilaa iyo taariikhda waa sidaan: toddobaadkiisa koowaad waxa uu keenay 124.94 karoor, halka toddobaadka labaad uu keenay 50.68 karoor, toddobaadkiisa saddexaad waxa uu keenay 14.15 karoor, halka jumcadiisa afraad uu keenay 75 karoor, sabtidiisa afraad waxa uu keenay 1.25 karoor, toddobaadka afraad 2 karoor oo xaraash ah ayuu keenay muddo 2 maalmood. total waa 191.77 karoor.